wararka ka imanaya buuraleyda waqooyi bari ee gobolka Sanaag ayaa ku waramaya in halkaasi saaka dagaal sababay dhimashada hal ruux iyo dhaawaca 4 ruux oo kale waxaana deegaanka dagaalku ka dhacay u dhaxeeya magaalo xeebeedda Waqdariya iyo deegaanka Galweyte oo baryahanba uu ka taagnaa muran dhinaca macdanta dhulka laga qodayay kaasi oo u dhaxeeya beelaha maanta dagaalka dhimashada iyo dhaawaca sababay u dhaxmaray geesta kalena waxaan isku daynay inaan la xiriirno bulshada deegaamadaasi si aan xog faahfaahsan uga helo khasaaraha dagaalkaasi hase yeeshee goob jooga ku sugan dagaalkaasi oo xilli dagaalku socday aan wareystay ayaa hadalkiisa ku soo koobay waxay ku soconaya muxuu yahay maxaad uga jeedaayo socda ma dagaal baa socdo dagaalkii saaka dhacay ayaa imika dib u bilowday oo baad uga jeedaa imika ay tahay saacadu galin dambe dagaalkii saaka sideed saaka bilowday dagaalkaasi saaka dhacay khasaare intee leeg buu sababay anigu 3 nin oo dhaawac iyo nin dhibasho baan ognahay maxaad oran kartaa maadaama goobjoog aad u tahay baa dagaalkan sababay jaamac Jibriil Jaamac oo kamid ah xubin golaha deegaanka degmada Cerigabo oo warfidiyeenada kula hadlay gudaha magaalada Cerigabo ayaa wariyaasha uga waramay dagaalkaasi khasaarihiisu intuu leeyahay maanta dhacay dagaal dhinaca tilgad buu ka dhacay lama oodo meel la yiraahdo ka dhacay dad baa dhaawaca dadna way dhinteen xog waa meel fog waxay u baahan tahay meeshaasu in dawladdu gurmad ka gasho wadooyinku way xidhan yihiin daadadkii baa gooyay halkaas wax la leeyahay dagaalkii weli wuu socdaa laba qabiil baa is hor fadhiya marka waxaan jecelahay in hubka hal dagaalka la joojo dadkana loo gurmado waa meel go'doona wuxuu ka dhacay waa meesha dahab uu ka dhacay lama wada la yiraahdaa waa Waqdariya iyo Galweyte dhexdooda xoogaa dahaba laga helaa la yiraahdo roobka soo saaray waxa ku guuray dad dahablayaal oo dhinacan ka tagay marka kulay dhimasho way jirtaa dhinaca kalena uma warayno hadda laakiin waxba la soo sheegaya waanu u sheegnay dawladda iyo booliiska iyo ilaa rag badan baan la hadalay marka khasaaro 3 nin baa la sheegay dhinacan iyo 7 dhaawac ayaa hadda la sheegaya war aad u cadna maaha waxaana xusid mudan inuu haatan mar kale oo galabta ah uu dib u bilaabmay dagaalkan uu welina socdo wax wara ilaa haatan kama soo bixin maamulka gobolka Sanaag xukuumadda Soomaaliland kama hadlin xiisada ka soo cusboonaatay xeebaha waqooyi bari ee gobolka Sanaag Saciid Muuse Farax Said Qurbawi telefishinka Badda Cas TV wararka gobolka Sanaag